ciyaartii u dhaxaysay Khabib iyo Conor waxay ahayd ciyaar xiise gaar ah wadatay oo muddo dunida dhan laga wada sugayay. waa ciyaaryahan u dhashay Russia halka Conorna uu dhashay dalka Ireland. maalmihii ka horreeyay ciyaarta xayisimaha loo sameeyo wuxuu Conor weeraray bas ay saarnaayeen ciyaaryahano UFC ka tirsan oo uu Khabib ku jiray, waxaana la sheegay inuu si gaar ah ugu dan lahaa Khabib. mar kale haddana waxa uu soo taagay khamri Khabib wuuna diiday, wuxuuna u sheegay inuu muslim yahay oo ay xaaraan ka tahay cabista khamrigu. kadib Conor waxa uu caayay diintiisa islaamka, wuxuu ku sifeeyey mid aad u dibdhacsan oo ilbaxnimada dunida aan la jaan qaadi karin. wuxuu ku tilmaamay argagixiso, wuxuu aflagaadeeyey reerkiisa. ugu dambayntii waxa uu yidhi bal haye kaa celiso diintaadu iyo waxyaabo kale. Khabib wax jawaaba kama bixin aflagaadooyinka ka imanaya Conor. markasta wuxuu oranayay Allah ayaa weyn, Allah weyn ayaa ceeb ka nasahan. About my religion, he talked about my country, he talked about my father. He come to Brooklyn and he broke bus. He almost killed couple people. What about this? Nevada, sorry. Vegas, sorry. And Alhamdulillah, undisputed, undefeated UFC lightweight champion. I told you guys, everything I'm gonna change 6 October and I do this. Alhamdulillah, thank you so much. muddo markay socotay Conor aflagaadiinta uu ku hayay Khabib, labada feeryahan waxay isugu yimaadeen masraxa T-Mobile ee Las Vegas ee dalka Mareykanka. waa goobtii kala reebta, waa meel hadalku aanu ka shaqayn oo ay qof walba awoodiisa iyo kartidiisu ay wax tarto. feeryahanka muslimka ee Khabib ayaa ka badiyay Conor iyadoo lagu jiro wareegyadii ugu horreeyay, wuuna isdhiibay Conor. mana laga filayn in Conor uu isdhiibo iyadoo wareegyada hore la marayo. isdhiibidiisa waxaa loo sababeeyey inuu ka baqay in Khabib uu nafta ka qaado xanaaq uu ciyaarta ku soo galay oo uu arkay, iyo weliba awoodda iyo xirfadda dheeriga ah ee uu Khabib la yimi. Khabib markii uu hubsaday inuu guulaystay wuxuu ka booday shabaqa, wuxuuna weeraray kooxdii Conor uu adeegsan jiray. waxaase kala dhex galay booliiskii goobta joogay, laakiin qodobkaasi waa lagu haystaa anshax ahaan Khabib inuu weeraray dad aan ku jirin goobta kala reebta. kadib 27 jeer oo uu ciyaaray Khabib UFC, weli hal mar lagama badin. guusha Khabib waxay niyadda u qaboojisay oo ku farxay malaayiin muslimiina oo daafaha caalamka ku kala nool, kuwaasoo ka xanaaqsanaa hadalladii guracnaa ee ka soo yeeray feeryahan Conor oo aan hadda mar dambe hadal laga hayn kadib guuldarradiisii. Alhamdulillah, I know you got this, don't like this. Alhamdulillah, tomorrow night I'm gonna smash your boy, guys. I'm gonna smash your boy.